وبال معناها أو لا تكوري وبال حقوقه ونغطنتي عد أو مقليسة أو إسلام أما الله كبقيسه أما وحي أغانايين حق إتاجي الربان حقوقه الله قال معامله الله قال قرقتمه هدي لو ديدو وحقوقه اللي سيواي هذا واحد البوكي ماله وواحد إذن كسبتين ما أنت ما هذا هورين أتاجري هذا أنا تاجر أتاجناي جنرال حيدر qaar ka mid ah haweenka beesha Makane oo ku hubeysan qoryaha fudfudud ayaa maanta soo bandhigay dowladtus ay ku dhiirigelinayeen ciidanka macawisleeda beesha Makane. Dumarkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka go'an tahay raadinta xuquuqda ay sheegeen inay uga maqan tahay dowlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne. meeshaan u imaanay maanta iskugu imaanay annagoo ah gabdhihii beesha Makane waxaan garab taaganahay oo hiil iyo hoo u garab taaganahay walaalaheena dulmidiid jabhadda xaq u dirirka beesha Makane gaar ahaan jaranaal Xaydar Xasan Dhaqane hiil iyo hoo waa la garab taaganahay hadalba ay noqoto haddaan nahay gabdhihii beesha Makane hortiisa dhimanaynaa halkaan waxaan u taaganahay aan iskugu nimid walaalahayna oo kullu maanta aan ku qabnaa oo wada safanay oo maanta u wada nimid haqayna inaan helno haqayna si degdeg inaan nala siiyo haqayna nala muujiyo haqayna waa la kay haqayna banaanka loo keeno anakoo 4 Makane ah beesha Makane waxaan codsanaynaa haqayna si degdeg ah inaan nala siiyo haqayna haddaan waynane haddaba يا ليس إيدنا كاسة ليس عنا مالها إن شاء الله إلهي إنتي ليس ما نعد فيديو haweenka beesha Makane oo iskugu imaaday maanta halkaanito waxaan u taaganahay heel iyo hoobo janaraal Xaydar inaan garabkiisa aan ahaano had iyo jeerba aan taakulayno waxaan u taaganahay halkaanito hortiisana inaan dhimano gadaashiisana aan dhiman aan diyaar aan olanahay meel alla balad ibaadiyo wixii naga jir saacaas wax naga koreeyba male waxa garataan Soomaha rag iyo dumar saawnaayba garabkiisana hortiisaan dhimanayna gadaashiisaan dhimanayna aan heel iyo hoo la garab taaganahay dhalinyarteena 4 Makane ilaa dawkuura wax walbo oo hayaraato kale nabadoon Yuusuf Nuur oo ku hadlayay afka nabadoonnada beesha Makane ayaa sheegay in beesha Makane nabadoonnadooda iyo waxgarad iyo dhalinyarada ay ku mideysan yihiin inay garab istaag u muujiyaan Generaal Xaydar Xasan Dhaqane. waxaan si cad u sheegaynaa beesha aan nabadoonka u ahay ka dhashay maanta hadalkooda wad maqlaysin horena wad u maqashan intaasna wili war idin lagama haayo anigala hela jawaab cad oo xuquuqdoodii meelay u doontaan iyo xuquuqdooda waxay leedahay haddaana la helin dhibka dhacaya waxa dhigay waa idinka cid kale oo maanta loo saarinayo malaha beeshaan waa beel xaqeeda maqan waa beel xuquuqdeeda maqan waa beel macnaha oo la takooray waa beel xuquuqdooda lagu tuntay cid kasta oo maqlaysa oo islaam ama Allah ka baqayso ama waxay ogaanayeen xaqa Itaaجي الربان حقوقه الله قال معامله الله قال قرقتمه هدي لو ديدو وحقوقه اللي سيواي هذا واحد البوكي ماله وواحد إذن كسبتين ما أنت ما هذا هورين أتاجري هذا أنا تاجر أتاجناي جنرال حيدر كان الله سيو runtii waa nin damiir leh waa nin dadnimo leh waa nin beesha dhibkeeda iyo maanta waxyaabaheeda la dulmsanaayo nin diidan waa nin diidan beesha tafaruqeeda iyo kala wadkeeda la siyaasadaynayo waa nin diidan oo kor imaasan waxaan taageersannahay aan garab taagannahay anoo ku hadlaaya magaca nabadoonnada beesha Makane dhammaantood waxba yaana beesha la kala gedin dhammaan nabadoonnada beesha Makane hadalkoodan ku hadlooya cid kastoo beesha Makane nabadoonnada raalli ka yihiin arrinkan moona miday diidan yihiin ma ahan hadday diidayeen waxaad arkina idinkoo meedaytaa oo taagan yihiin dabadaas ma rabno dhahayo cid ooysa malaha maanta waxaa muwaafaqo noqday beesha Makane dhammaanteed